kusmaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta daahfuray ololaha taageerada daweynta xoolaha deegaanada Puntland kaas oo la gaarsiin doono 3 milyan oo kamid ah xoolaha ku dhaqan deegaanada Puntland. munaasabada daahfurka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cismaan Aadan Fisigis, shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha, dhaqaatiir iyo waliba saraakiil ka tirsan madaxtooyada maamulkaasi Puntland. Axmed Cilmi Cismaan Karaash madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu bixiyo dhaqaatiir soo daweyn doonta 3 milyan oo kamid ah xoolaha deegaanada maamulkaasi Puntland, waxaana uu sheegay in xooluhu ay yihiin laf dhabarta Soomaaliya. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxa uu dhaqaatiirta kula dardaarmay inay xil iska saaraan hawsha loo igmaday, waxaana uu bogaadiyay wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Puntland shaqada wanaagsan ay hayso. ama xooluhuba waa laf dhabarta Soomaaliya, shiraalka xarabta ama meelaha wadamada horumaray ama kuwa shaashka ah waxay ku faanaan shilaaladoodii waxooday ka helaan inkamka. innagu runtii waxaynu ku leenahay ama dakhli ka helaa ama kuba noolahay waa xoolaheenna, ama cad baynu ka cunaa ama caanaynu ka maalaa ama weynu iibsanaa ama harag baynu ka waxaynaa. wixii inkama iyo wixii noolahay iyaga ayaynu ka helaa. marka waajib bay tahay aadna ugu faraxsanahay in maanta daahfurka tiimamkan baxaya aan maanta u daahfuro. dardaarankii wasiirka ayaan raacayaa. nafteenu waa xoolahaas inta u badan inaynu ku dadaalno in sidaa wasiirku idinkula dardaarmay aad fulisaan in wasaaradda runtii iyo dhakhaatiirteeda iyo tiimamkeeda runtii in aad loo tixgeliyo oo lagu tixgeliyo shaqada wanaagsan ee muhiimadda weyn leh ay hayaan. waayo sida wasiirku wasaaraddu walba waa ka importantahay, aad bay uga muhiimsan tahay.